دمان مرتدى كلا دوانة كتير جوابها كفوق كتيمت وحمانت شرف النوها إن أتكسوق بقشان شركة نسجها لقونا قط مجال الجيجا وحنا لنا بقعد نبض نوت باتين كسر هذا مجال الجيجا intaas markaan ka imaado runtii waa farxad ay u tahay duldaanka Soomaalida oo ay matalayso maamulka magaalada Jigjiga hirgelinta la hirgeliyay khibrad isweydaarsigan maanta lagu qabanayo magaalada Jigjiga oo runtii ahaa mid aad iyo aad loogu baahnaa ahaynana in hore loo qabto waxaan rajaynaynaa inta aad la joogtaan inaad la kulmi doontaan wax idin raali geliya hadii ay jirto wax loo baahan hayo oo ay tahay inaanu gacan ka siino haday tahay in la booqan hayo goobo kale dhamaanteed waan la idin foodin doonaa si fiicanna waa la idin la socon doonaa muddada aad la joogaysaan haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonto kulankan isaga aha wax fiican oo khibrad laga faa'iidi doono oo gashi u noqon doona dhamaan magaalooyinka halkan isugu yimid mid walba midda kale waxa ay ku dhaanto maanta la soo bandhigi doono iyadoo ay tahay saanfilahayo markii koobaad hadda intaan xusta waayahan magaalada Jigjiga ay hirgeliso ama ay martigeliso kulankan isaga oo kalaha waxaana leeyahay insan noqoninkii u horeeyay ha noqdo kuwa kale oo dambe inay daba socon doonaan insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo sidaa daraadeed waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Jigjiga muddada aad la joogtaan waxay noo tahay farxad iyo sharaf ay noo tahay wax walba u baahataan garab baa idin leeyahay waxaan idin rajaynaynaa maalin wanaagsan aad waqaan doontaan si fiican hawshiinadu ku socon doonto aad iyo aad u masantii dhamaantiin نصيب هالشيء إن شركة أي يقول لي نقطة شركة كسوق يبقلين لا تضبط سيدة ماير أو ككلا يمدي مقالوينك دلكو ككومية ترى بلون بلقبته وحي كان سائن متانا مقالوينك يستحقلان إن يسفهمان إن متانا خبرات وذاك لقاتان أو مر بمتانا موضوع قارع وليس لصاروا ما أنتو حيابا لقاها اللي وحكمتها أربان فاينانس سيستم sidii mataqaana wax weyn loo kobcin lahaa dhaqaalaha magaalooyinka laga magaalo tusaale loo soo qaatay dhaqamti iyo bulbula oo iyagu mataqaana maanta jeedinaya khibrad wadaaga magaalada Jigjiga ka socda kulankan oo oran karno magaalooyinka dhan muhiim buu yahay oo mar walba in ay magaalooyin kala tagaan ay khibrad wadaag wada qaataan ay isbartaan aad iyo aad ay u fiican tahay أنا كل ما أنت نسيب حنو هلا ما أنت جيجيهان أن مرتجل إنه مقالوين كأكل الدجان كوضع هذا لنا خبرة وذاك عن يالنا discussion عن سمعنا presentation كسابسن urban finance system نولوجيا ديو قاب كي دخل مقالوين كورورنا يلفتي إذا مثلا أي كم بتاعي ويا محن آديات ومحن نقلنا وركن ليلا إثيوبيا سيتي association oo mar walba ku hawlanay magaalooyinka wadanka iyo magaalooyinka kale ee mataqaan Afrika ama caalamka ay isku dhaxgalin lahaayeen isku fahmi lahaayeen saadaraad maanta waxa farxad weyn noo ah in inta soo maayir ay magaalada Jigjiga yimaadaan oo Jigjiga arkaan iyagoo aad ugu faraxsan shirkan iyo khibrad wadaagan oo rajayna mar walba insha Allah in magaalooyinka kale deegaankuna ay ka qayb qaataan shirka ya ziba ahun zaare የጀመርነው በጅግጅጋ ከተማ አስተዳደር ጋት በመነጋገር ያዘጋጀነው መድረክ ዋና ዓላማው በአርባን ፋይናንስ ከተሞች ገቢ እና የፋይናንስ ሲስተም ላይ አንዱ ምን ወያይበት ነው ሁለተኛው በከተሞች የእግረኛ መንገድ ስራ ግንባታ ልማት ላይ ያለ ነው እንደገና ይሄ ደግሞ የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ተሞክሮ ይቀርባል በሶስተኛ ደረጃ የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር የህዝብ ተሳትፎ ስራዎች ላይ ያከናወናቸው ስራዎች እንደተሞክሮ ይቀርባል ስለዚህ የተሞክሮ እና የልምድ መለዋወጫ መድረክ ነው የዛሬው መድረክ በእነዚህ በሶስት ጉዳዮች ላይ ውይይት ይካሄዳል የከተሞች ተሞክሮ ይቀርባል ስለዚህ ከተሞች እንደዚሁ ክቡራን ከንቲባዎች የሚመካከሩበትን መድረክ ለመፍጠር ነው እየሞከርን ያለነው
ku dhisan inay magaalooyinku iscaawiyaan khibrad wadaag yeeshaan dakhligooda iyo dhaqaalahooda say sare ugu soo qaadi lahaayeen khibrad wadaag dhab in laga sameeyo in magaalooyinka la casriyeeyo oo ay noqdaan magaalo u adeegaya dadka ku dhex nool oo populationka ku dhex nool magaalada inay si wacan ugu adeegaan ayuu kulanka intiisa badani maaragtay daaran yahay waa khibrad wadaag dhinacna waxa weeyaan waa gubaabin dakhliga iyo adeega iyo sare u qaadida dhammaan waxyaabaha ay bulshadu dalbanaysa ee asaasiga ah ee magaalo walba markaa u yaala marka waxaan u joognaa maanta hawsha khibrad wadaaga oo magaalooyinkeena 6 ay ka mid ka yihiin 4 ka mid aan hadda maanta ku joognaa meesha waxaan rajaynaynaa inuu wax badan oo wanaag u soo kordhin doono magaalooyinkeena oo inagoo la wada kaashanayna magaalooyinka kale ee dalka khibradaha iyo waaya aragnimada iyo dhismaha iyo waxyaabaha ay gacanta ku hayaan ee wanaaga oo ummadda ay ku dhex nool magaaladaas ayaanu meesha isugu nimid marka kulanka nuxurkiisu intaas ahaa aqoon-isweydaarsi ku saabsan gaar ahaan kobcinta iyo ururinta dakhliga oo ay magaalooyinka taqriiban 70 magaalo oo kamid ah magaalooyinka Itoobiya ay halkan isku weydaarsanayeen dabcan magaalo waxbay ku fiican tahay magaalana waxbay ku liidataa ujeedada ugu muhiimsan waxa weeye waxyaabaha lagu kala fiican yahayna in la iska qaato meelaha laga jilicsan yahayna in la xusuusiyo si waqtiga dhow loo bedelo wax looga qabto marka inagu deegaan ahaan dhammaan maamul magaalooyinkeenu way ka qayb galeen masuuliyiintiina way joogaan dabcan inaguna waxaan ka faa'iidi doonaa deegaan ahaan inagana waxba leenaga faa'iidi doonaa ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim Dagaaran Media waa saaxiibka dadweynaha